filimkeena wuxuu ku bilaabmayaa gabar lagu magacaabo Jamie waxayna ahayd maalinta dhalashada xafladeeda. Waxay wacday saaxiibkeeda Tai waxayna u sheegtay inay tahay xafladda dhalashadeeda. Kitai waa uu ka ogolaaday isla markiiba. Kitai waxa uu sameeyay taleefanka ayuu batariga ka bixiyay. Jamie aad ayay ugu naxday maadaama ay halkaas ku cidlootay. Maalintii xigta waxay soo aaday maqaaxida saaxiibkiisa Bobby. Waxay weydiisay halka uu aaday Kitai. Bobby ayaa wuxuu wacay Kitai maadaama uu Kitai lambar labaad uu lahaa maadaama uu isaga wax jecel uusan u haynin. Bobby labadood ayuu isku diray wuxuuna kashifay Kitai. Wuxuuna u sheegay maqaaxida dhabarkeeda inuu isaga joogo. Jamie ayadoo xanaaqsan ayay banaanka soo baxday waxayna ku aragtay Kitai. Waxayna dhahday Kitai maxaa sidaan igu gashay. Kitai wuxuu u sheegay inuu howlo badan oo ganacsi ku mashquulsan yahay. Kitai wuxuu ku jawaabay jacayl waxaan loo joogin ayaad ka hadlaysaa waana kuu sheegay walaalay aan ka shaqaysto waqti isii aan ka nafisay. Jamie waa ay ilmaysay waxayna ka naxday sida uu ula dhaqmay Kitai. Isagana wuxuu ku jawaabay si jees ah waad nafistay ifasax. Jamie waxay ku jawaabtay khiyaanola ayaa tahay sidaan kaama filaynin Kitai. Kitaina Jamie hadaladeeda waxba kama soo qaadin goobta ayuu isaga tagay. Arintana waxaa korka la socday maamo waayeel ah lagu magacaabo Hayaan. Waxayna u imaaday Jamie waxayna siisay talooyin inay ragga badankoodii khiyaanolayaal yihiin. Maalintii xigta Jamie waxay soo aaday maqaaxidana waxay ku aragtay Bobby oo kaligiisa maqaaxidana fadhiyo. Waxayna rabtay inay ku aragto Kitai wayna ka weysay Kitai. Bobby wuxuuna u keenay cunto iyadana waa ay ka diiday. Waxayna dhahday waan baxayaa. Isagana mar kale ayuu kashifay Kitai. Wuxuuna u sheegay inuu Kitai Bangkok uu joogo. Wuxuuna siiyay locationka gurigiisa. Isla markiiba way ay soo baxday iyadoo murugaysan waxayna soo raacday baska waxayna wacday isaga waa uu ka qaban waayay taleefanka. Kitai isagoo suuliga ku jira ayay albaabka soo garaacday. Isagana waa uu maqli waayay. Mindi ayay soo qaadatay waxayna ku jiibisay qataarka irida. Waxayna aragtay Kitai oo dhulka jiifo. Jamie markii ay aragtay inuu Kitai cabsan yahay waxayna bilowday inay isku duubto iyadoo ka raadinayso raaxo qasab ah. Habeenkii xigta Jamie waxay soo aaday gurigeeda. John oo walaalkeeda ahaa ayaa wuxuu sheegay ayadoo guriga Kitai galayso iyadana way ay xanaaqday. Isaga ayay la dagaalamtay shaarka ayayna ka qartay hana way ku dhufatay. Jamie hooyada ayaana timaaday iyadana isla markiiba dharbaxsho ayaa lagu dhuftay. Hooyadeeda ayaa dhahday walaalka miyaa sidaan uga dhaqmaysaa. Iyadana way xanaaqday goobta ayay isaga tagtay. Jamie waa ay soo baxday waxay soo raacday taxi si ay soo aaday guriga Kitai. Guriga markay timid waxayna ka waasay Kitai waxayna go'aansatay inay seexato gurigiisa si ay isaga ugu sugto. Laakiin guriga waxaa joogay Bobby oo ahaa Kitai saaxiibkiisa. Bobby wuxuu u soo dhawaaday Jamie wuxuuna dhahay halkan maxaad ka qabanaysaa. Waxayna u sheegtay inay Kitai raadinayso. Haatanna Jamie waxaa isla markii daba joogo familkeeda maadaama iyada ay hore u soo baxsatay. Jamie walaalkeeda ayaa waxa uu garaacay Bobby isagoo ku qaldaya Kitai. Maalintii xigta Jamie waxay soo wacday Kitai waxayna ogaatay inuu isaga maqaaxida uu joogo. Waxayna u sheegtay in dhankiisa u soo socdo. Kitai waa uu dhibsaday hadallada ay dhahayso Jamie. Wuxuu isagana waqti la qaadanayay gabar kale. Kitai gabadha la socotay wuxuu ku amray inay wajiga qarsato si aanan loo fahmin. Gabadhina markay sidaas sameysay isla markiiba maqaaxida ayay ka baxday. Jamie markay Kitai la kulantay waxayna dhahday khiyaanadan ilaa goorma ah igu wadaysaa. Wuxuuna u sheegay inay lamaano dhab noqon doonaan arooskoodana uu dhici doono isbuuc kadib. Aad ayay ugu faraxday waxayna ogaatay in qorshaheedu uu hirgelay. Asbuuc kadib waxaana la gaaray maalinta arooska. Jamie waxay isku diyaarisay arooskii. Dharka arooskii ayay isla markiiba xiratay. Hooyadeed ayaa ku jawaabtay ninkan iska maqan waa maxay. Tai wuxuu isla markiiba fariin u soo diray Jamie. Fariintana waxay ahayd fariin naxdin ah waxaana ku qornaa. Wuxuuna u sheegay inuu iyadu u baahneen uu haatan ku sugan yahay dalka Philippines. Daawadayaal filimkeena qaybtiisa koowaad meeshaas ayuu ku go'ay. La soco taxanaha labaad. Subscribe, like, share midna noo saar. Ku soo dhawow channelkani wuxuu kaaga baahan yahay inaad channelkan nagu dhiirigeliso